Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada casharadeenii advantage-ka aa nooga barateen haadahan oo kale in idin soo gudbino. Inta aanan u gudagelin ka hor casharada advantage-ka waxaan idinka codsanaynaa haddii kanaalkeena ku cusub tahay fadlan like noo saar, subscribe-na noo dheh, share-na noogu dar. Haddii aad ka mid tahay macaamiisha ku xiran janaalkeena, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad dhiirigelisaan oo aad dadka usii share gareysaan. Mawduuceena maanta waxaan uga hadlaynaa after corona kadib maxaa dalkeena Soomaali la gudboon inaan aniga u diyaar garowno. Ma la dhihi karaa ka dowlad ahaan ama ka dal ahaan aqoon-yahanadeenii oo u diyaar gareysan inay wajahaan haddii oo in case cudurkan la mid ah ee adduunyadu mar labaad isku dagaalaan sida quwadaha adduunka isku adeegsanayaan harbal biology ama microbiological war diyaar mu u yahay. Ka shacab ahaan maxaa nala gudboon, ka xukuumad ahaanna maxaa laga sugayaa inay u diyaar garowdo. Ka Soomaali ahaan ilaa iyo hadda saasaanta muuqata corona kadib ma muuqda diyaar garow dhab ah oo shacabka ama dowladda u diyaar garoweyso dagaalka ka jira adduunka ee lagu magacaabo harbal biology ama microbiological war. Sidaan la socono wadamo fara badan waxaa ka jiro inay isku gudbinayaan waxyaabahan loo yaqaano virology-ga sida hadda dhacday oo cudurkan COVID-19 la isku gudbiyey. Marka COVID-19 kadib maxaa anaga diyaar noo ah? Ma la dhihi karaa waddankeenii wax walba oo la rabay inay diyaar gareeyaan ama la rabay inay wajahaan waa ka hurdayaan. Waan naqaanaa dhibaatadii faraha badnaay oo sababay cudurka COVID-19 ilaa iyo hadda adduunyada kama sii zuulin. Khubarada adduunka waxay ku soo waramayaan WHO la shaqeysa inuu cudurkan ilaa iyo 10 sano soo socdo oo kusii jiri doono adduunyada. Waataa xaaladii ugu dambeeyay hadda adduunka laga soo warbixinayo waxay sheegayaan in waddanka China oo mar labaad dib ugu soo laba kacleeyay iyadoo xayawaanada iyaga dhaqdaan mid ka mid ah laga helay sida xayawaanka loo yaqaano doonfaar ama bikis ama khanziir. Xayawaankaas doonfaarka ee aadka u isticmaalaan wadamada reer galbeedka iyo in yarta wadamada Asianka qaarkood kuwaasa waxay sameeyeen inay dhaqdaan xayawaanadii ay dhaqan jireen iyagoo cudurkii qabeen cudurkii xayawaanada jirkooda ku jiray wuxuu bilaabay inuu dib ugu soo gudbo dadka shakhsiyaadkii oo xayawaanada dhaqaayay dadkii waxay bilaabeen inay magaalada kusoo gudbiyaan. Waxaa jira marka kumanaan xayawaan oo anaga aan isticmaalno ama aan dhaqano sida ariga, lo'da, geela, baadiyaha kale ilaa hadda ma jiraa muwaajahaad ku aadan dhanka dowladda inay u diyaar garoweyso inay la dagaalanto cudurkan si serious ah. Waayo xayawaanadaas haddii qaadaan cudurka ama qof bini'aadam dhaqaaya hadduu cudurka qabo u gudbiyo xayawaanada maadaama hadda gobollada laga soo sheegayo kiisas fara badan oo baryahan aad ugu sii yaraanayso xayawaanadaas ay u gudbiyeen haddii oo mustaqbalkii xayawaanadii iyo bini'aadamkii ay dib u bilaabaan dhaqashadoodii bini'aadamkiina ay soo qaadaan cudurkii ma la dhihi karaa wuxuu dib ugu soo laabanaya magaalooyinka Soomaaliya caasimadaha sida Muqdisho iyo goboladeeda kale. Marka maxaa anaga nala gudboon? Ma inaan dhahnaa COVID-19 adduunka wuu ka baxay sida hadda waddan kasta uu ka zuulay oo xayawaanada ku nool sababayaan inay dib ugu soo noqdaan. Anagana ma waxaan dhahnaa xayawaanada anaga aan dhaqano cudurkaas dib nagu soo celinayaan oo dadkeena intay ka baaba'ayaan ma daawanaa. Su'aashaas iyo su'aalo fara badan waxaan rabaa aan dhageystayaasha aan u dayo jawaabahooda. Qof kasta fikirkiisa waxaan ka codsanayaa inuu comment igu soo qoro maadaama oo dalka anaga dhan naga dhaxeeyo anaga dhan aanan shacbi weyne maadaama fikirkan abaabulay qof kasta isku daya video inuu share gareeyo si oo qof kasta oo shaqaale dowladda u arko anaga u diyaar garowno. Haddii kale cudurkan iyo cudurro fara badan la mid ah dalka ma bixi doono. Dalkani wuxuu u baahan yahay dad khubaro ee scientists in la mideeyo. Qof kasta keligiis gees ka ordo dhibaato waxay arrintaasi ku tahay shacab weynaha Soomaaliyeed maalin walba 100 qof dhimanayso siyaabo kala duwan ay wada baxayaan. Anaga hal siyaabo u jeednaa noo muuqato laakiin 100 siyaabood kala duwan dadku dhimanooyin siyaabahaas kala duwan ee dadku dhimanayaan oo dhan in la baaro la dabagalo u baahan tahay ilaa ay hadda qof u istaagtay ama qof u soo jeeda male. Marka adiga sidee kula tahay maadaama corona laga gudbay oo hadda adduunkii oo kasii dhamaanayo ma laga yaabaa corona inuu Soomaaliya dib ugu soo laba kaclay? Haddii jawaabtaada haa tahay iyo sababta reasonka commentiga noogu soo muuji waana mahadsantiin.